qaraxii shalay markuu dhacay kadib xaaladda way degan tahay, magaaladu dadkuna nolol maalmoodkoodii caadiga ahaa iyo hawlahoodii caadiga ahaa bay iska wataan, wax dhibo ma jiro. waxaa soo kordhay warar la leeyahay in la qabtay 9 xubnood oo commissioner ku-xigeenkii boolisku uu ugu wen yahay oo baaritaan uu ku socdo. baaritaano kalena way sii socdaan. marka xaaladaha hadda intaasaa kusoo kordhay caawa hadalhaynta dadka waxaa la hadalhayo waxaa weeye qabashadan xubnahan cusub ee saraakiisha ee 9. waa gartay. marka sidaad ii sheegtay hal sarkaal ayaa ku jira oo ku-xigeenka booliiska, marka kulligood ma wada saraakiilba mise dadkii kaleeto oo xataa qaarkood goobta ayagoo laga xirxirayo mararka qaarkood shaashadaha caalamka ay muujinayeen ama la qaqabanaya ayaa ku jiro? maya 9 xubnood ee hadda la qabtay ee cusub 9 xubnood baa boolis weeyaan, waana saraakiil. 9 waa saraakiil weeyaan, waxaana ugu weyn ku-xigeenkii commissionka booliska heer federaal baa ugu weyn. marka waxaa horey loosii qabtay 3 xubnood ee maanta markii shalay markay hawshu dhacday 2 naagood iyo nin hawsha loo aaneynayay oo dadkii qaraxyada bambooyinka tuuray ah yaa iyaguna horey loosii qabtay. marka waxay noqonayaan dadkan xiran 12 bay hadda noqonayaan dadkan xiran. waa gartay. marka inkastoo markii hore 6 qof lasoo bootiyey, haddana hadda saad ii sheegtay waa 12 qof. marka guud ahaan ma wada ahan saraakiil iyo ciidamo booliisa, laakiin dad shacabaa ku jira dabcan, soo ma? may waxaa haweenkan 2 haweenka waxaa laleeyahay waxaa laisku hayaa waa shacab iyo waa boolis, laakiin 2 haweenka iyo ninkii hore ninku inuu boolis ahaa baa la cadeynaya. marka waxay ka dhigan tahay 10 xubnood inay boolis yihiin sida hadda la sheegayo. waxa weeye 2 xubnood ee kalentana ay shacab yihiin. waa gartay. marka xalay waxaa jirta in guud ahaan telefishinada wadankaasi tviyada hawada laga saaray xaalado sugid amni ay sameynayeen ciidamada booliiska sida wararka nagu soo gaarayeen. marka hadda sidee ayay wax u muuqdaan saaka? wuu degan yahay, jawigu wuu degan yahay saaka. jawi aad buu u degan yahay, sidii xaaladuna waxa weeyaan wax carqalada iyo wax dhibaato la dareemayo ma jirto. waxaad moodaa dadku inay ku talagaleen marxaladani si nabadgelya in lagaga gudbo wax walba caqabad oo ku yimaada nidaamka ku yimaada. wacyi fara badan iyo dulqaad fara badan baa ka muuqda dhalinyarada iyo dadka shacbiga caadiga marka xaaladuhu aad bay u wanaagsan yihiin. wax inaba rabshado oo la dareemayo ma jirto iyo wax argoota midna. cabdinuur, marka bal waxaad iga warantaa, ra-iisul wasaaraha wuu hadlay, sidoo kale wuxuu booqday isla shalay galabo xilliga Addis Ababa dhaawacyadii la geeyey isbitaalaadka. marka maxaa ra-iisul wasaaraha dareenka uu kaga falceliyay weerarkan qaraxee loo adeegsado uu yahay? wax kaliya la hadalhayo waxaa weeyaan ilaa hadda saacadan aan kula hadlayo waxaa laleeyahay wuxuu ku dhex jiraa isbitaaladii oo weli kamuusan dhex bixin oo wuu diiday inuu gurigiisii aado oo uu jiif tago. marka runtii waxa weeye dhibaatadii iyo dhibkii dadka ku dhacay buu la wadaagahayaa, waana wax laga filahayay weeye qalbigiisa iyo aragtidiisa sidii loo taageersanaa isaguna inuu seexan waayo. marka dadku waxay leeyihiin caawa hataa waxa weye wuxuu dhex wareegayaa weli saaka isbitaaladii buu dhex wareegayaa oo dadkiibuu ku dhex jiraa oo gurigiisiiba muusan aadin siday wax u dhaceen. maadaama ra-iisul wasaarahan cusub waayadan oo dhan uu wada isbedelo ku cusub wadanka iyo guud ahaanba gobolka, kulankan markuu qabanayay kaba soo qaadba oo intaasoo kumanaanka dadka isugu imaanayeen, ma jirta dareenka ah in wax ay dhici karaan oo xataa ciidamo la geeyay meesha? ma jirtaa baaritaano ma sii jireen mase waxa dhan deg deg ayay iska ahayd? arrintan munaasabadan taageerada ahee loo fidinhayay ra-iisul wasaaruhu ma ahayn nidaam dawli ah wax ku yimid oo dawladda ay abaabushay ma ahayn. wuxuu ka yimid fikir dad dhalinyaradii taageersanayd isbedelka hormuudka ka ahayd, dad aqoon-yahana iyo ganacsato. marka wuu jiray nidaam system dawladdu ay ku ilaalinayso dhulka oo waxa weeye lagu garab taagan yahay, laakiin wuxuu ahaa barnaamij iyo qorshe shacab u ahaaye ma ahayn nidaam dawli ah. mana lama jirin de si wadankan Ethiopia kama jirin barnaamij noocaas oo laisku beegsado shirarka ama kulamada kama jirin. marka runtii lama filaan bay ahayd in dhibaato noocan dad radiyada oo si nabadgelya u banaan baxaya ay ku dhacayso. wax shacbiga Ethiopia iyo xukuumaduba ay ku talagalshanaayeen ma ahayn.
waayahay marka hadda hadalhaynta ugu badan waxay tahay maxay u dhimi kartaa ra-iisul wasaaraha dardartii isbedelo uu ka waday dalka Ethiopia weerarka noocan oo kaleeta adigu maadaama tahay qof iska madax banaan haddana wararku maxay sheegayaan maxay dawladdu leedahay arrintani caqabad ma keensan doonto wax dhibaato ah kuma noqon doonto shaqooyinkii uu waday ra-iisul wasaaruhu iyo dadaaladii wadanka reformkiisa dardarta ku gelinayay weliba waxaan aaminsanahay in kalsooni iyo niyad samiiq shacab iyo midda xukuumadeedba ay usii kordhin doonto waxa weeye runtii uu kaga gudbi doono adaygii uu ku socday iyo kalsoonidii shacbigu ay u hayeen mid kasii diir inay dardar gelin doonto hawlihiisaan aaminsanahayo ayna wax caqabada ku keensan doonin uusan ku moraal jabi doonin shacbiguna kama daalayaan oo runtii waxaad isleedahay markii la sheekeysanayo ama dhalinyaradu afkaaraha iyo aragtida ay isweydiisanayaan waxaad arkaysaa way sii saddex jibaarantay taageeradii iyo kalsoonidii loo hayay hanku dadka ay u qabaan